وشيء سدح بالي سدح الفرط التاجس مع كوضع wixii xogaa oo dhamaystir rabaana oo dhankayga qabyo ku ah waa iga hele ضرورة ما لا سيسي بس أيضا أنت أوكي ما غني عمك أعلوك في الصبح خلي قبل كل سنة واحد هذا كل جو كله وشيء سدح بالي سدح الفرط التاجس مع كوضع wixii xogaa oo dhamaystir rabaana oo dhankayga qabyo ku ah waa iga hele daawadayaal soo dhawaada maanta waxaan idin haynaa laba qodob qodobka koowaad waa daahir cusub oo waraysi la yeeshay wiilkii siiyay daroogada Fahiima kadibna ku duway muuqaalka anshaxun iyo waraysigaas wiilka ma ankiray mise waa ogolaaday in barnaamijkaas si ka dambeeyo ilaa hadda arintii Fahiima intee ay maraysaa idinkina na daawanaysiin waxaan idin codsanaynaa in like share noo dhahdaan haddii halkan aad ku cusub tahay subscribe noo saartid gambalelkana aad furtid si aad ula socotid barnaamij walba aan halkan idin soo wadaagno oo saaxiibadeyna u gaaro waxaan idin leeyahay daawash wacan muuqaalkan iyo muuqaal kale waxaad kula socon doontaan janankeena oo soo guursana waa dil haddii soo guursanina hadda hawsha diintu ka qabtaa hal la mariyo waa intaas haddii la hayo daar cali soo hayana daar cali soo ilaashan wuxuu ku hayaa waan soo dhigayaa bal muxuu soo dhigayaa waa kan nala saarne saruur iyo saacad waa kala badbaaday wayna guurisay dhulbaanta kor loo saaray waana ka baxay waa mahadsantihiin okay daahir baan soo weydiinaya daahir soo dhawow inta aarkaan ku soo noqonayo daahir baan hal soo weydiinaya daahir wiilkii dhulbahante waa gacanta lagu hayaa adaana haya ama qof ama adiga ka socda ama Malaysia ama dad kala hayaan gacantaadu ku jira dhulbahantana waxay niga dhaxeeya wanaag iyo galgacal baa niga dhaxeeya gabadha wax loo geystayna waa gabadh in adeertayo saacada su'aasha ku weydiinaya waxa weeyaan meesha soo dawlad kama jirto mise meesha dawlad kama jirto aday kuwa simaadaan dawladdu amarka adiga bixin kara amarka adiga tuuri kara maxaad ugu dhiibi laadahay dawladda haddii wiilka gacanta lagu hayo fiidiyo aad soo duubtay waan arkay oo macallin nambarkiisa uu ku qabanayo dawladda maxaad ugu wareejin laadahay wixii diintu ay ka qabto ama hal la toogto ama hal la dilo maxaad dawladda ugu dhiibi laadahay gacantaada ugu jirtaa marinta iga jawaab بسم الله الرحمن الرحيم horta marka hore dhalinyaradan daaroodka ah meelaha ka waawaaleen in warsageliyo dhuxusha iska shito oo iska maskiina iyo mid dhulbahantaa oo meelaha qamriga ku cabo iska maskiina inaad horta waqti ku lumiso hadalkooda ma aha su'aalo markay leeyihiin faqashin oo beega sheekayaan faqashinigu faataxmiyo ku jooga gobolka Sool faqashini taariikh buu leeyahay halkan in faqashiniga la dilay wiil lama aasi ilaa shaqo loo dilo wayna yaqaanaa dhulbahantii warsageli way yaqaanaa marka dadkan ay faanka ka soo hartay awrkii cirka dabada goostay horta sheekadooda waxaa leeyahay halka iga dhig faataxa kuma joogaan habargida dhulka Soomaaliyeed qofkii tabar hayara inuu noo calama waa inuu wax sameyn kara sameeyaa taasi waa taas dadku iska foodista asaga markuu sheekeynay wax badan oo mataa ka soo qaaday ma sheekadiisa waxaan rabaa dadka Soomaalida u sheegay dhageysanay kuwii 200 qof ku yaalay gurigaas waayo marka meesha lagu dhibaataynayo gabadha waa gurigeeda guri ayada ee lahayd waay adeeg qof dhibaataysay oo markaas qof si u geysatayna ma laha barnaamijka sidii oo hadda bulshada Soomaaliyeed oo wada gaaray oo khaladka ma baaha baadi bas inta gacanteeda maaragtay oo meesha soo galaysa intaas aan mistake ku leeyahay daahir ma yani waxaan rabaa fiiri hadaarta wax ka xaliyo oo si ilaahay ku ugu sheeg sababtoo ah gabadha waa aragnaa gabadha inay daroogaysata waa arkaa gabadha in dila kufsaday oo shahwadin ay ku buuxdo waa arkaa adiga inta gacantaada ku qabata waxa dhahaysaa saddex nin yaan ku kufsanay waxa u dhigay saddex fara taagaysa wax ka wada ma qaan inta ka jiido saddex fara taagaysa gabadhu waxay tiri asaga adeeg ku haysataa riboodka laga qoro booliisku waa arkay wax ka jira ma laha wallahi alcadiim aan ku dhaarinayaa labadeeda garbood malaa'iga saaran inay aamintaan waa sii jeclaan adiga say wax u dhaceen oo runa ii sheeg qof inta laga qalbo ka dhaca ani habeenkaas guriga waa joogay ani fahmaana qolka ku jirnay qof kale oo kale la joogteena ma laha daaro saddex qof waa qof kale ma joogin guriga video gacantii jiray videoga anoo haya wixii ka dambeeyay geesi baalacada ee xabadeeyay oo ilaa saldhigga hodan aan ka dacweeyay saldhigga hodanna markaan ka dacweeyay taliyaha saldhigga waxa ka ahaa Cabdullaahi Midoobe min la dhahayo oo hadda saldhigga howliga ka taliya Cabdullaahi Midoobe ugu xiray fanax markaa u tagay xerada ugu bilamiyay xeradii banaadir markaa ugu tagay waxaan dhahay niyo ani wali garaafay xalay guriga
soo galay telefonaa la iga qaatay daataa la iga qaatay hantiyaa la iga qaatay telefonkii ku jirtay taliyow raggaas adaa u taliye qof walbana meel loo soo mar leeyahay ani maanta waan ka hortaaganahay liifka dhabarka iga yaalaan tusay Mustafa Cali Faras maanta oo rabaana oo dhankayga qabyo ku ah waa iga hele waayahay marka hore codkii Ibrahim oo u duubay ayaynu baarista ka bilaabaynaa Ibrahim Qaarid codkii u duubay geesay baa cadde ayaa ka bilaabaya baarista inta ay dhageysato marka hore telefonkii inta qof aa kacaysay oo idabdarrada aa kula hadashay araash aa caysay dad kale aa caysay maxay ku dhacday saaxiibo telefonkii iyo cawaankii in la kiciyo oo lagu soo xadgudbo taliye ariyaaniya haddaa dhoweyso ibraka wareeji naxariisu ku badooya saaxib geesi waxaa wada khalad waaye khalad badan oo iga gashay waana iga gelusa hadeertada sawaarka waxaa farasna habeenkii nasiiba telefonkii ay igala wareeg saaxiibno waxaa sidaasaa geesi saaxiibno waxaa sidaasaa iisoo dirdiri muuqaalo iyo wax kale iisoo diri xataa wallah waxaa idii sheegaa waxaa waaye kiiskan labad wado oo maraabisaa wareegayo walaalayaal oo shaqo ku welihi haddaa islaam tihiin oo ilaahay taqaaniin oo kitaabkiisa taqaaniin oo yaaminaysiin waa maalin jimcaha waxaa gacan ku hayaa waa kitaab qur'aan ah cid alal cidii dacwo ii qabto waa ka dacwo baxaa meel alal meeshay joogaan waa ugu eg waxaa geesi baad cabdi tuug waaye ayagaana karkarinaya kiis walba khalad walba u galo dadkii daboolo waaye geesiga magaalada dhan ay ka qeylisay waaye haddii hal qof ayaa dan fahma marka kiiskii adoo kaa dhacay gabadha adaa waxaa ku samaysay filim adaa ka duubtay laakiin waxaa xoog kaga qaatay geesii baa sax lagu wareejiyo hay'adaha annagu dadna kufsan mayno dadna wax laga duubi maayo qof sharci darro lagu dili maayo dhaqanka habar geesiga hawiyuhu saas ma aha annagu sacdan waliba siinoo sacadku waxa weeye kofeer sacda leedaa dowladnimo waa naga dhima jiray waa naga dhima doonaa waxa weeye wax kasta wixii sharciga islaamka uu qabo ayaa lagu xallin doonaa wixii kale huhaa iyo been iyo dacaayad iyo hanjabaad ahna dadka u deeyna anaga waxayna waxa weeye waa shaqo marka waa maasantihiin barnaamijkan ala soconaa community dadweynaha aan daawaraya marka waa kaasa qof kasta u baahan live oo hadda meesha ka yahay hadda wato ninkaas dhibka uu geystay iyo ma hadduu live yahay hadda uu live yahay soo siyo soo saa ugu jir kamera wata telefonka ku duubtay gabadha bahalkeeda ku qabanaysa shahwadadeedii muuqato waa arkay ku qabanay ku faanay haye gabadhii ka dhacsana noo shahwadii uu qabanay gacmahaaga naasadka jiidisa meesha dajabatada ku jiidisa ka shiriga ku soo jiiday waa sheegay saddex farood ataagis maxaa ka wadaa habeenkaas daaro saddexdaas farood horta wax reason ay leeyihiin malaha oo ilaahay iga sarreeya ani hadda wax walba ma ku sheegtay sidii ilaahay igu ogyahay ma ku sheeganayo maxaa wax kaaga qarinaa wax saddexdaas farood fiiri shahwadadii aragtaa adig fiiri adaas ku marqaad furis adeer ani waxaan rabaa haddaa wixii aad rabta inab kaa tadinka iska bax yaan waqti iskaga lumin haddaa ilaa wixii daacadnimo kiiska ani waa galasaan wax iga dhaceen xalli waad arkaysaa waxaa ku jira programka kiiska dad badan bay la soo galaysaa raadka la soo galaysaa saan arkayo clipkaasaan hadda daawanaynaa bal say wax u dhaceen deeqleecow waad arkaysaa wiilka wuxuu ku dhaaranayaa in daroogada iyadu isticmaashay waad maqlaysaa hadalkiisana laakiin kiiskan wuxuu noqonayaa kiis weyn buu noqonayaa hadda mid baan ii sheegayaa wiilasha marka la rumaysta ama wiilasha marka la soo arko sheekadani waxay noqonaysaa sheekadii ugu xumayd abid wiilkaasina kitaabka quraanka qofka dhaaranayaan ma garan karo ma isagu waa kitaabka waxa dhaaranaya mise qof kale oo ahaa kitaabka quraanka dhaaranaya laguma dhaarto walaaliya